بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ما أنت كهذا إن شاء الله تعالى قفك الصلاة تكون فرح كقاعدة الله يقان تارك صلاة كتجي حكم كيس محوية إسلامك قفك عاصم قلبا مسوا مسلم وعن رأس غشة صلاة واجب نمدة يا أحاديث كسر أرورتي النبي صلى الله عليه وسلم لجوري يا آياتها قرآن كأفر بدن سواء رجناها وعكمدها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة وحي كتها دتك إسلامك المؤمنين تا أشهدنا الله جرنا وحي كتها واجب وقت يسن وقت جون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظة صلاة حافظة صلاة دحنا حافظة أو صلاة عصر اللي يري سأدراد قفك مؤمن كا وحلو جبه هي وواجب كأ إنه صلاة إلى الشو صلاة وحنا واجب قفك عن مرنا كدعين هويني عن داير هين مويان قف kale oo muslima oo ashaadanaya oo aqli leh oo qaangaara waa ku waajib qof kasto muslim oo aqli leh oo qaangaara salaadu waa ku waajib marna kama dhacdo marna salaadu kama dhacayso laakiin se kolba sidoo u kar ayuu u tukani salaada waxaan soo sheegnay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'a samaawaat ka soo waajibiyay waxaan sheegnay salaadu inay ahayd waxyaashu u dambeeyay ee hadalka nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu dhiban uu ku hadlay uu yiri as-salaa wama malakat aymanukum marka qof islaama oo ashhaadanaya oo alla garanaya haduu salaadii ka tago tukan waayo culimadu waxay yiraahdeen laba xaalo mid uu yahay haduu salaada inkirsan yahay waajibnimadeeda iyo faralnimadeeda iyo wax ilaahay duldhiga inay tahay haduu diidan yahay qofkaasi waa gaal islaam shaqo kuma leh diinta islaamka uu ka baxsan yahay oo gaalada alla aanan qiraynin xukunka ay leeyihiin uu buleeyahay ka maanta kama hadlayno halka idhig haduu qofku ashhaadanayo islaam sheeganayo salaadiina uu tukanaynin laakiin sa uu qiraaya inay waajib tahay faral tahay ilaahay duldhigay uu qiraaya laakiin se fudaydsi iyo ajsi iyo wahsi uu u deynaya laakiin se uu garanaya inay tahay waajib ilaahay saaray ilaahay weydiin doono ay faral tahay uu garanaya kaabay culimadu markaasi xukunkiisa ka hadleen ay isku qabsadeen laba qowl bay markaasi culimadu ilaahdeen culimadu badankeedu si madhabta u badan tahay waxay yiraahdeen qofkaasi wuxuu leeymiday dambi aad u weyn meel kabaa'ira oo ciqaabta ilaahay iyo cadaabtiisa uu ku xaq mudanayo laakiin se diintii islaamka qofkaasi kama wala bixin oo laysa kaafiran kufran yukhrijuhu an al-milla sab'i culimadu badan yihiin culimada qaarna waxay leeyihiin qofku haduu salaada daayo oo si joogta u daayo oo salaadihi oo dhan shantii faral midna uu tukanaynin uu si joogta sida u yahay waxay yiraahdeen waa gaal diintii ka baxay oo islaam shaqo kuma la yiraahdeen waxaan u soo daliishadeen aayado iyo xadiis ta nabiga qaar kamida ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun waxa ka dambeeyay dadkii wanaagsana iyo ahlu khayrkii iyo salafus salih waxa ka dambeeyay kuwa damba adaacu salaata oo salaadii dayacay oo shahawaadkoodu iyo waxay naftoodu jecleed raacay ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala markaasi halka waxa laga fahmayaa baradeen in dadka salaada dayacay ayna mu'miniin ahayn aayad kale wuxuu ilaahay ku yiri subhanahu wa ta'ala wa aqimu salata wa la takunu min al-mushrikiin salaada ooga oo wanaajiya oo tukada oo ha ka mid noqonina kuwa mushrikiinta ilaahay u shariig yeelay marka halka waxay ishaaraysaa ay ku tusaysaa qofka salaada aan tukanin inuu kamid yahay mu'miniinta laakiin uu kamid yahay mushrikiinta iyo culimadu yiraahdeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kaloo noo sheegay hadalkii dhexmaray dadkii naarta galay dhexdooda ma salakakum fi saqar markii la weydiiyo kuwii naarta galay maxaa naarti nigaliyay waxa u horeeyay ay ku jawaabeen waxay ahayd qaaluu lam nakum min al-musallin maanan ahayn kuwa tukada maanan ahayn halka markaas walam nakun nud'u al-miskiin wa kunna nakhudu ma'a al-khaa'idin laakiin waxay ku bilaabeen salaada kuwa tukada maanan ahayn ayay yiraahdeen aayada kale ilaahay subhanahu wa ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yad'una ila sujudi fala yastadi'un khashi'atan absaruhum taraqum dillah wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun yawm al-qiyamah marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ittihamayo adoomihiisa ee markaas sujuuda la yiraahdo waxa sujuudaya wax alla wixii kuwi adduunka salaada xafidaya ee tukanaya way sujuudayaan kuwii aanan adduunkan ku tukanayna dhabarkooga baa laga dhigay baa la yiri ku isku xidhiidhsan oo aan jilcsanaanaynin
oo markaas ma sujuudi karayaan dhinac bay u dhacayaan uquubadana waxa keenayna li'annahu lam yasjud lillahi subhanahu wa ta'ala fi dunya ilaahay tukanay sujuudayn adduunka xadiis kale wuxuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku salah waxa u dhaxeeya qofka iyo gaalnimada iyo shirkiga salaad ka tagista u dhaxaysaba بمعنى قفك مركو صلاة كتغو وكدعي كفرق شركي وكدعي حديث كلا وحوها إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بلن كان نقد حي أناغا إياغا وصلاة قفك صلاة كتغي وقالوا بي ينبغي عليه صلى الله عليه وسلم مركا وقالوا بي داس علماء قارنا كحنباريان وقالوا بو دين إسلامك وكبحي وقالكي معتب كلاهي إسلام أن شقك لهين قارنا وحي لي مية وكفر دون كفر ودنبي وين لكن دينتي إسلام كولا بحين دينتي إسلام وكبح عندنا وحي كردك أنت هاي قابرت مسلمين تلقوا عاصم مايو هوين يديسي حلال ونقل ميسي ولا غفوري دحلك إلا دحل مايو يعني حكم بدل ما كرد لنا وحفظ دماغ وعقل النبي نلي صلى الله عليه وسلم حديث أحمد بيهقي أي وريين من حافظ عليها صلاة قفكي حفظية إلى الشاء سفي عنوتو كذا يوم القيامة وحي نقونيسا نور يحجو ينبت قليو قفكي صلاة آن حفيظين آن إلالين آن تكنا يوم القيامة النور إفتين يحجو يدليل ينبت قليو ما هايستو وحانا للسو حشريني ولا لسو جوجيني قال دي واوينين صدا قارون يا فرعون يا هامان يا أبو لهب يا للسو جوجيني waxa ku filan xitaa hadaan maanta qofka salaada aan tukani waa iska islaam oo muslim hadaan waxa ku filan inay dambi weyn tahay oo culimo badani ay gaalnimo gaarsiiyeen may ku wanaagsan tahay in islaamkaaga iyo diintaadii la isku haysto oo waa gaal iyo gaal ma ah la leeyahay kaaba ku filan qof markaasi muslim ah oo dhiig leh oo damiir leh oo alla garanaya waxa ku filan ceeb iyo khatar iyo mahalako naftiisa inuu halaago in islaamnimadiisii ay tahay calaamatu istifaan tul isweydiina ay tahay ayaa ku filan ilaahayna subhanahu wa ta'ala kuwa nagama yeelo allah hana waafajiyo salaada inaan oogno oo dadkeenana aan amarno oo ku adkaano wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam